بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنا ويدين تنأه What is a blockchain technology and a cryptocurrency؟ هردع blockchain technology iyo Web3 waa tiknoolajiyad aad u ballaaran oo aanan halkan lagu soo koobi karin balse annaga waxaa naga quseeya inta la xiriirta financiga. haddaba haddii aan ku hormarno in aan qeexno ama aan kala qaadno ereyga blockchain waxa ay ka kooban tahay laba erey block iyo chain. block waxa ay xaqiijisaa isku xigitaanka xogta kala iibsiga iyo welibana diiwaangelinta xilliga u dhacay kala iibsiga. xogta kaydsan waa mid si la hubo ama ammaan ah iskugu xiran. isku xirkaasna waxa uu ka hortagaa in xogta wax laga bedelo. haddana aan isla aragno ereyga chain oo ah in xogta kala iibsiga lagu wada xanibay silsilad aanan laga noqon karin. haddaan isla fahnay labada erey aan aragno qeexitaanka blockchain technology waxaana ku qeexi karnaa inay tahay buug dijitaal ah oo xogta ku kaydsan oo nuqullo isku mid ah laga heli karo kombiyuutarada cid waliba oo xubin ka ah silsiladan. tusaale qof baa 10 shilin u diray qof kale. qofkii diray 10 shilin waa laga jarayaa, midkii la siiyeyna way ugu kordhaysaa. haddaba xogta ah isbeddelka 10 shilin qof waliba oo xubin ka ah silsiladan waxa uu ka haystaa nuqul ama koobi isku mid ah. haddaba blockchain waa tiknoolajiyad awood u siinaysa jiritaanka cryptocurrency oo haddii aanay blockchain jiri lahayn cryptocurrency ma jirteen. haddaba block kasta waxa uu inta badan ka kooban yahay 3 walxood. data xogta waxa ay ka kooban tahay macluumaadka ku saabsan dhinacyada ah yaa waayo qofka lacagtan diray, sidoo kale yaa waayo qofka qaatay, tirada lacagta la isku diray waa meeqo iyo wixii la halmaala oo ku saabsan kala iibsigan ama isweydaarsigan lacagtan. 2 hash waana waxa ka dhiga kala iibsi waliba mid gooni ah waxa uuna ka kooban yahay xogta dhan ee kala iibsiga. haddaba hashkan waa sida saxiixii kale ama calaamada farahoo kaleeto oo sida qof waliba uu u leeyahay fingerprint ka duwan qofka kaleeto ayay hashkan ugu samaysaa kala iibsiga sumad u gooni ah. 3 hash of previous block waana qaybta sida saxda u samaysa blockchain sababtoo ah block waliba waxa uu sidaa xogta blockii hore waana silsilada isku xirta blockga cusub iyo blockii hore. midaas ayaana ka dhigaysa isweydaarsigan mid ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. haddaba blockchain sida aad ka aragtaan sawirkan waa xog isku wada xiran oo qofna aan wax ka bedeli karin. midaas ayaa ka dhigta ammaan. qof waliba waxa uu haystaa nuqul ama koobi xogtaas ah. kombiyuutar waliba oo ka tirsan silsiladan waxaa laga helayaa isla xogtii oo mid ka bedelan ma lahan. haddaan isla fahnay blockchain technology soona sheegnay inay gundhig u tahay jiritaanka cryptocurrency aan markan isla fahanno micnaha cryptocurrency. haddaba cryptocurrency waxaa loo soo gaabaa crypto waana lacag dijitaal ah waxaana lagu xifdiyey iyadoo la adeegsanay codes taasoo ka dhigaysa kala iibsiga mid aamin ah oo aanan la bedeli karin. ogowna jiritaanka cryptocurrency kuma xirna ama kuma tiirsana bangiyada. xog dheeraada oo ku saabsan fintech fadlan ka dhigayso lifaaq hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.